بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوديال صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijraadkeena halkan waa channelkeenu kulana YouTube-ka ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijraadkan idinku soo maqanna waxa ka mid noqonaya kiiska sargaal dhikraan Tahliil Faarax fariimaha ka soo dhacaya ee ku saleysan cadaalad u raadinteeda waa kuwa waali ah xitaa madaxda qaranka way akhrin laayihiin waxa ayna marayaan heer ay yiraahdaan kiiska gabadhan cadaalad loo raadiyo oo shakhsiyaadkii ka dambeeyay hal waafajiyo cadaaladda waxaana haatan ka shaqeynaya kiiska Ikraan Tahliil Faarax hay'adaha garsoorka maxkamadda ayaa toos loogu gudbiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana toos u abaaraysa kiiska Ikraan cadaalad u raadintiisa shuuta iyo sidoo kale Buule Kamey ayaa la soo warinayaa sida xoga hoose aynu ku helnay in loo xil saaray kiiska sargaal Ikraan Tahliil Faarax madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Xamza Cabdi Barre ayaa tan waxa kaliya ka go'an in ay la xisaabtan ku sameeyaan nidaamkii dalka ka talinayay 5 sano ee la soo dhaafay oo la og yahay gaboodfalladii cuslaa ee uu dalka ka geystay muddadii uu maamulayay farmaajiyo sidoo kale Faadi Yaasiin Xaaji Daahirna ee hormuud u ahaayeen faaqidaada iyo saaxiibayaal daawadayaal ku sameyn doona Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur kiiskan lugta ugu jirta ayaa sidoo kale soo qaadan doona sida ayuu Mukhtaar Roobo cadaalad ugu raadinayaa gabadhan maadaama uu ka tirsan yahay wasaaradda diinta iyo waqaafta oo aanan wax shaqo ku lahayn kiiskan faaqidaada iyo saaxiibayaal daawadayaal ku sameyn doona saddex arin oo ku saabsan magacaabistii Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuurna sidoo kale waynu isla odorasi doona daawada sax meel waliba joogto soo dhawow muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo beer subscribe inoo saar channelka faraga mararka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawada saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku bilaawno kiiska sargaal Ikraan Tahliil Faarax ayaa xilliga ka sii dambeeya waxa ka soo dhacaya fariimo waali ah oo aan la akhrin karin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kiiskan ku jaawareersan taleefanadooda ayaa la soo wacaya qaybaha ay ka isticmaalaan baraha bulshada internetka ayaa sidoo kale la soo wacaya fariimo ayaa loo soo diraya oo kiiska gabadhan ku gadaaman qoyska markaasiba gabadhan ayaana soo diraya fariimaha sida ila xogogaala aynu ku helnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamza Cabdi Barre ayaana kiiskan waxa kaliya ka go'an inay soo afjaraan maadaama haatan uu marayo marxalad waali ah oo xitaa ay gaareen heer ay akhrin waayaan fariimaha ku gadaaman kiiska gabadhan maqan muddada halka sano ah ee lagu magacaabay Ikraan Tahliil Faarax Xamza Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale nidaamkii dalka ka talinayay 5 sano ee la soo dhaafay ayaa intuu waxay isku yihiin dab iyo basiin Xasan Sheekh iyo Xamza ayaa isku dhinaca Faadi iyo Farmaajona waa isku dhinac waxaana labada koox bay yihiin laba koox oo doonaysaba midba midka kale inuu soo bandhigo ceebihiisa iyo sidoo kale fadeexooyinkiisa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la ogaayay wixii uu dalka ka sameeyay muddadii uu talinayay intii uu joogay madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliyana wax aanan u wanaagsanayn jiritaanka dawladnimada dalka ayuu ku dhaqaaqay kiiska sargaal Ikraan Tahliil Faarax ayaana kamid ah kiisas dhowr ah oo nidaamkii dalka ka talinayay 5 sano ee la soo dhaafay ay ku lug lahaayeen kiiskii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa sidoo kale kamid ah kiisas dhowr ayaa jira kiiska dhalinyarada tababarka ciidanimo lagu qaaday wadanka Eritrea ayaa sidoo kale kamid ah kiisaska la soo qaadan karo sidoo kale waxa kamid ah xasuuqii Baydhabo ka dhacay oo Mukhtaar Roobo lagu soo xiray sidoo kale kiisas dhowr ayaa jira waxa ugu waaweyn kiisaskaas in madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu xiriirka si toos ah ugu jaray wadamo fara badan oo markaasiba walaal iyo saaxiib dhow la aha dawladda Soomaaliya oo markaasiba haatan soo kabasho ku jirta wadamada caalamkana markaasiba aad muhiim ugu ah
farmaajo haatan waa dibad joog oo wax tala ah kuma laha dowladnimada Soomaaliya. agagaarka Hotel Jazeera ayuu guri ka gireystay kadib markii Villa Soomaaliya laga saaray oo xilka si toos ah ugu wareejiyay madaxweynaha iminka talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud. farmaajo ayaa waxa iminka kaliya ka go'an inuu isdifaaco, sidoo kalena uu difaacay saaxiibkiisii siyaasadda Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo ay isla soo gubteen. farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in Fahad Yaasin Xaaji Daahir uu ka hor leexiyo kiisas dhowr ah oo ugu horeeya kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax. arrintaasi lama aqbali karo, lagamana yeelayo ay leeyihiin dadka falaqeeya ama odorosa siyaasadda dalka Soomaaliya. dad fara badan oo wasiiraha kana tirsan xukuumadda Xamza ayaa u cararaya una ordaya sidii ay cadaaladi ugu baadigoobi lahaayeen gabadhan maqan muddo hal sano ah ee Ikraan Tahliil Faarax, taas oo la waayay 26 Juun sanadkii hore 2021 abaare 2 saac fiidnimo. Ikraan Tahliil Faarax madaxii internetka ee hay'adda Nizaaye ahayd Cyber Security ayay qaabilsaneyd, inkastoo xilkaasi uu dafiray agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir xilli uu wareysi siinayo wariye Faarax Cabdiqaadir Geylaan. kiiska gabadhan maqan muddada halka sano ah waa mid xamaasadiisa leh isla markaasna xasaasiyadiisa wata. shacabka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale u taagan sidii gabadhan iyo cadaalad ugu heli lahayd, sidoo kalena kiiskani uu sii jiri lahaa ilaa iyo cadaaladda laga waafajiyo. shakhsiyaadkii ka dambeeyay afduubkii iyo dilkii loo geystay Ikraan Tahliil Faarax ayaa qaarkood baxsaday oo wadamada caalamka ku sugan, sidoo kale qaarkood ayaa Muqdisho jooga oo Muqdisho markaasiba ku nool. Ikraan Tahliil Faarax kiiskeeda warbaahinada markaasiba baraha bulshada markaasiba sida YouTube sidoo kale Facebook aad ay u hadalhayaan, aad ayayna wax uga qorayaan waxyaabaha kiiskani ku soo kordhayana aad uga faaloonayaan. Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur ayaa sidoo kale kamid ah shakhsiyaadka cadaaladda u baadigoobaya Ikraan Tahliil Faarax. Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur 3 arrin oo markaasiba ku saabsan magacaabistiisa. Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur nin maalmo badan magaciisa dhex yaalay miiska go'aanka kooxda Al-Shabaab, mid kamid ah kuwa lacagta la dul dhigay madaxooda, nin muddo badan u dagaalamay afkaarta dimuqraadiyaddiidka ayaa maanta ah magaca ugu saameynta badan 26 wasiir oo ay leedahay Soomaaliya. Robo wuxuu 7 bishan wuxuu markaasiba u dhaartay ilaalinta diinta dalka, dadka iyo dastuurka, maadaama uu waqti dheer diidanaa dowlad ku nool nidaam awood qaybsi 4.5 ah iyo dastuur ay reer galbeedka maalgeliyeen. waxa aad loo eegayay dhaartiisa, balse dhaartii xaddii hore kadib hadda waxaa la isweydiinayaa sida ay dowladda Soomaaliya uga faa'iideysan karto Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur iyo waxa uu ku biirin karo nidaamka cusub oo uu ku biiray hormuudkan ay u yihiin Xasan iyo sidoo kale Xamza. Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur dadka yaqaana waxay sheegaan in uu weligiisba xagga nidaamka dooliga uga dhawaa madaxda kale ee kooxda Al-Shabaab, waana sababta ay waqti hore isku khilaafeen isaga iyo sidoo kale hogaankii kooxda. in uu ila heshiiyay dowladda federaalka Soomaaliya in uu raadiyo xukunka madaxtinimada Koonfur Galbeed iyo in uu maanta qaatay wasiir, intuba waxay fasirayaan in Mukhtaar Robo haysto faham dowladeed oo ka dhow midka Al-Shabaab. wasaaradda diinta awqaafta iyo Mukhtaar Robo marxalad xasaasi ah ayuu ku soo aaday imaantika Mukhtaar Robo ee wasaaraddan. midda koowaad waa dhaqanka Soomaalida oo intooda badan waafaqsan diinta Islaamka ayaa waayihii dambe si weyn loo duray. culimada Soomaaliyeed waxay dhowr muxaarado ku sheegeen in uu socdo dhaqan burbur ay sabab u yihiin baraha bulshada internetka, daroogada sida weyn u soo gashay dalka iyo dhaqamada reer galbeedka oo si weyn loogu soo minguuriyay Soomaaliya. wasaaraddan waxaa hortaala jihaynta dhaqanka suban ee Soomaalida iyadoo lala aqrinayo diinta Islaamka. aqoonta diimeed ee Mukhtaar Robo waxaa la aaminsan yahay inay halkaasi wax badan ka goyn karto. wasiiro badan oo aan lagu tuhmaynin faham diimeed ayaa hore u soo maamulay wasaaraddan. midda labaad waa firqooyinka diimaha ayaa ku sii xoogeysanaya Soomaaliya, qaarkood waa kuwa hubeysan in shaqada wasaaraddan iyo jaangoynteeda ay firqooyinka wada aqbalaan ma ahan shaqo fudud. wasiir Mukhtaar Robo
wuxuu dhowaan sheegay in uu culimada oo dhan kala tashan doono tallaabooyinka uu qaadayo. waxaa loo arkaa nin aad u og loolanka firqooyinka oo haleeli kara maareyn dhexe halkan waa looga faa'iideysan karaa. midda saddexaad waa dagaalka kooxda al-shabaab. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre labaduba waxay dhowr jeer sheegeen inay bilaabayaan dagaal buuxa oo ka dhana kooxda al-shabaab. in dagaalkaasi lagu guuleysto keliya kuma imaan karto awood ciidan. waxaa jira dad si xoogan u aaminsan in loo baahan yahay in kooxda lala galo dagaal caqiide ah. mukhtaar rowe cali abuumansuur oo xogogaal u ah xaalka al-shabaab iyo sida ay u iibiyaan fikradooda waxaa la rumaysan yahay in uu keeni karo xeelad lagu fashiliyo habka ay al-shabaab u iibiso afkaarteeda. in uu dhab ka noqdo dagaal fikir ah oo al-shabaab lala galo wax badan ayay ka faa'iidi kartaa dowladda federaalka Soomaaliya. marka qodobadan la eego oo lagu kabo in si dhab ah loo wajaho waxaa dad badan u muuqata in dowladda federaalka iyo Soomaaliya ay ku faa'iidi karto magacaabista mukhtaar rowe cali abuumansuur kaas oo aan dhinaca kale weli ka tanaasulin doonistiisa xukunka madaxtinimada koonfur galbeed. gudaana daawadayaal saaxiibayaal waa inaga intaa warkii madasha tan iyo barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo.